SSC baana la yiraahdaa maamul baanu samaysanay aniga argixismanina isaga argixisa isaga lagu xaman jiray isaga dadka la asxaanood leen jiray waa la ogaaray Umar Maxamuud ee saabuun waxaan maayaa qofkii arki kara galabta uu arkayaa dhexdayadu yaala laakiin insha Allah billahi kariim waanu ku guuleysananaa hadeerna waanu ku guda jirnaa waa buurta aanu taagnahay dhinaceedu taagan yahay igooriyo guumaysa deegaamadaasna waanu xidhnay waanu oodnay cid soo mari kartaa taariikhda maanta aan joogno ee 22 bisha hayla tahay uu arki doonaa waxa kala kulmi doona iyo cidda daba dhilifka ee daba socota ee naga mowqafka ee aanu ognahay ee laascaanood controlka ku dhex xidhatay taliya Cabdixaafid Gurey oo ah saraakiisha ka dagaalamaya magaalada Laascaanood ayaa warbaahinta kula hadlay jiida hore ee uu ka socdo dagaalku taliyaha ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolka isagoo ka warbixiyay dagaalkii saaka kala dhaxeeyay ciidamada xaqu-dirka SSC iyo kuwa Soomaaliland taliyaha warbaahinta la hadlay ayaa carabka ku adkeeyay inuu xiri doono xuduudda Yogoori halkaas oo ciidamada Soomaaliland ay maalmihii u dambeysay fadhiisinayeen wado ay gargaar ku soo maray ka dhigeen taliyaha ayaa dhanka kale fariimo u diray odayaal musabix sheegay inuu soo diray magaalada Laascaanood iyagoo ku soo jeeday degmada Yogoori ayaa digniin culus taliyuhu hawada u mariyay taliyaha warbaahinta la hadlay waxa hadaladiisa kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa idin salaamay saxaafadda sharafta iyo mudnaanta leh barkad la meeriye aad iyo aad bad mahadsantiin wadagtiin de maanta wax ka socda gobolka Sool saako waa berigii afartii subaxnimo in dagaalna lagu soo qaaday jaha kasta leh in 3 jahona laga soo weeraray in guriyihii maanta la dumiyay in ay si kasta ay isu caabiyaan ba aanu ku dadaalay in aanu ka saarno fadhiisimihii ay joogeen iyo markii hore ay ku dhuuman jireen ciidamadii xalay soo gaaray gobolka Sool ee xaqu-dirka SSC gobolada SSC oo awalba iska dhowrayadoo islaha warbal hayden ka baxeen maanta ay taariikhdu tahay 16 bisha ay 22 bisha waxaan ugu baaqayaa dadka heer SSC in ay sida maanta nimanka 10 loogu dhigay 6 jaho iyo 4 jaho iyo meel kasta ay naga soo galeen aynu sayno u galay ogeyn oo gaadiidkoodii haysano oo aynu meydkoodii aynu ka talaabsano ay meelahan yaalaan in aynu iska dhicino oo qof allaale qofkii goboladan SSC ka soo jeeda oo deegaamadan iyo meelahan qurux badan ee magaalada la duqeynayo wada jir uga soo wada jeesano waxaan leeyahay oo dhamaantiin idin leeyahay war ciidamadii way maqlayaan jiidii baan joognaa waa arkaan waxaan idin leeyahay sida aynu u dagaalamana aynu u kacno war dadka inaga soo horjeeda iyo dadka Hargeysa laga soo diray iyo dadka meelahan yaacaya aynu ka soo horjeesano oo Yogooriyo ku dhuumaalaysanaya shirarka doonaya inay ku qabtaan iyo guumays iyo meelahan doonaya inay yimaadaan annagu xaqu-dirir baan nahay wadani baan oo dhulkayga baan ku dagaalamanaa oo dhulkayga baan lagu soo weeraro dadka masaakiinta meelaha joogo SSC baana la yiraahdaa maamul baanu samaysanay marka ma doonano qof soo duulay oo la argagixisaatiin anaga argagixismanina isaga argagixisa isaga lagu xaman jiray isaga dadka la asxaanood leen jiray waa la ogyahay anagu taa kulay anagu ku dheeraan maayata isaga isoo cidda uu leen jiray hadeerna uu inaga inagu sheegay ismada iyo dhaqankii iyo gutidii iyo ummadda isku tashatay ku sheegayo anaka maamuli maayo musabix kaarihii Umar Maxamuud
saabuun waxaan leeyahay qofkii arki karaa galabta uu arkayaa dhexdayadu yaala laakiin insha Allah billahi kariim waanu ku guuleysanaynaa hadeerna waanu ku guda jirnaa buurta aanu taagnahay dhinaceedu taagan yahay yagoor iyo guumaysa deegaamadaasna waanu xidhnay waanu oodnay cid soo mari kartaa taariikhda maanta aan joogno 22 bisha hayla tahay uu arki doonaa waxa kala kulmi doona iyo cidda daba dhilifka ee daba socota ee naga mowqafka ee aanu ognahay ee laascaanood controlka ku dhex xidhatay hayla tahay meel bay joogaan laakiin war jiraaba cakaaruhu imaan ummadda heer SSC ee saddexda gobol Sool Sanaag Caynna waxaan ugu baaqayaa in aad sida aad hadeer halganka noogula jirtaan bacadka iyo dhaxanta u taagan maalintina bacad baan taaganay habeenkiina dhaxan dadka aanu maanta kuushii u horeysay aanu maanta ka gaadhnay iyo maanta u horeysay oo u dhaawacanay oo u dhimanay oo aanan cidna ka hibaysanayn waxaan rabnaa inaad sidaad noogu garab taagantihiin inaad sii laba jibaartaan waxaana way iska dhammaanayaan waana la isu imaanayaa taariikhduna way qormaysaa magaca daraawiisheedaanu ku faalno waanu naha sidaad noogu garab taagantihiin inaad sii laba jibaartaan waxaana way iska dhammaanayaan waana la isu imaanayaa taariikhduna way qormaysaa magaca daraawiisheedaanu ku faalno waanu naha waana ku faananaa nin walba waxaad xasuusataa sayid cabdulla xasan qolada dhaqanka ee la sheegay xaqan meelahan yagoori ka imaanayaan insha Allah iyaga waxba ka sheegi maayo waxaan leeyahay casharka yagoori bay qaadanayaan iyo waxay kala kulmi doonaan waxa markay soo gaadhaan jamhadda SSC insha Allah iyo dadka deegaanka iyo xaq u dirirku mid bay mid laba maaha waa mid ninkii nagu soo dhex dhumanaya deegaankana taariikhda sheegi doonta meesha uu ka gali doono taariikhda duqeynta nagu socotana insha Allah waxba uma aragno dad balaaran baan nahay annaguba duqeyn waa ku haynaa hadeerna waan iska celinaynaa mid baan nahay qofna uma liicsanin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh